dumarka single-ka ah ee aan weli guursan oo ay ugu wacan tahay rag la'aanta ka jirta dalkooda. Number 8. Japan. Haweenka Japan waa kuwa aqoon sare leh, dakhligoodu sareeyo, waxayna ku kasbadeen qulubta ragga adduunka oo dhan muuqaalkooda qurxoon. Si kastaba ha ahaatee, laga bilaabo 2023 saamiga haweenka Japan waa 51.18%. Intaa waxaa dheer, tirada ragga ee Japan ayaa hoos u dhacaysa sanad kasta, halka 41% raggu ay muujiyaan diidmadooda ah inaanay guursan. Natiijo ahaan, dumarka Japan 51.8% waa 20 sano jir, halka 27% haweenka 30 jirka ah ay yihiin dobab aan weli guursan. Number 7. Russia. Marka la fiiriyo sahankii la sameeyay 2022, tirada dumarka Ruushka waa 1.25 milyan oo ah in ka badan tirada ragga. Inkasta oo ay xaqiiqada tahay in gabdhaha Ruushka quruxdooda iyo tacliintooda sare si fiican looga yaqaan dunida inteeda kale, inta badan dumarka Ruushka ma guursan karaan ninka ay iyagu rabaan, sababtuna ay tahay in tirada ragga Russia ay ka yar tahay tan dumarka. Number 6. Portugal. Dumarka Boortaqiisku waa kuwa aad u qurux badan, firfircoon oo dareen leh, sidaa darteed ragga adduunka oo dhan ayaa soo jiitay iyaga. Tirada haweenka dalkan waa 52.71%, halka 89 rag ay ku aadaan 100 dumar ah. Tirada ragga dalkan ayaa sii yaraanaysa sanad walba, sababtuna ay tahay dhalashada ragga oo ka hooseysa tan dumarka iyo shaqada Portugal oo ka hooseysa dalalka kale. Celcelis ahaan, qiyaastii 10% ragga dalkan ayaa aada Brazil ama wadamada kale ee Yurub. Sidaa darteed, dumarkan quruxda badan ee dalkan ku nool ayaan weli guursan, sababtuna ay tahay la'aanta rag ku habboon. Number 5. Hong Kong. Waa dhulka madaxa bannaana gumaystihii Ingiriiska ee koonfur bari Shiinaha. 53.11% dadweynaha Hong Kong waa haween haysta dhaqaalaha madaxa bannaan iyo go'aamiyeyaal xirfadeed 30 sano ee la soo dhaafay. Waxaa ka mid ah sababaha keenay yaraanta tirada ragga ee Hong Kong: dhalmada hoose, khamriga xad-dhaafka ah, iyo wahaajirida dalal kale. Natiijo ahaan, 43.8% haweenka Hong Kong ayaa weli single ah. 4. Estonia. Dhanka quruxda, haweenka dalkan ayaa kasbaday qulubta ragga oo dhan, laakiin ma aha kuwo qurux oo keliya ku kooban. Sidoo kale waa gabdho wax bartay oo waxgarad ah, laakiin nasiib darro, tirada ragga ee waddanku way sii yaraanaysaa marka la barbar dhigo dadkeeda dheddiga ah, sababtoo ah heerka dhalmada oo hooseysa, isticmaalka khamriga xad-dhaafka ah, iyo sarreynta heerka ismiidaaminta. Natiijo ahaan, 47% dumarkan quruxda badan ee aqoonta sare leh ayaa weli single ah. Number 3. Latvia. Haweenka Latvia waxay ka mid yihiin dumarka ugu quruxda badan Yurub, kuwaas oo dunida oo dhan laga soo majeerto quruxdooda. Waxay kaloo caan ku yihiin marka laga soo tago quruxda, waxbarashadooda iyo heerka waxtarkooda. Si kastaba ha ahaatee, tirada ragga ayaa hoos u dhacday marka la barbar dhigo haweenka dalkan dhowr iyo 10 sano. Natiijo ahaan, haweenka da'doodu u dhaxayso 20 ilaa 40 ayaa weli doob ah. Number 2. Belarus. Haweenka Belarus waxay leeyihiin maqaar qurxoon, muuqaalo caata ah, iyo timo dhaadheer oo bunni khafiif ah, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan adduunka. Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Bangiga Adduunka, tirada ragga ayaa hoos u dhacday marka la barbar dhigo tirada dumarka muddo 33 sano ah. Hadda 53.92% wadarta guud ee dadweynaha Belarus waa dumar. Natiijo ahaan, 39% haweenka da'doodu u dhaxayso 20 ilaa 40 ayaa weli doob u ah la'aanta rag ku habboon. Number 1. Ukraine. Haddii aad samayso liis ka kooban 10 oo ah wadamada ay ku nool yihiin hablaha ugu quruxda badan, shaki la'aan inay ka mid noqon lahayd Ukraine. 10kaas wadan, haweenka Ukraine ayaa caan ku ah quruxda, garaadka iyo jihaynta qoyska. Si kastaba ha ahaatee, Ukraine waxay leedahay taariikh dheer oo hoos u dhac ah oo ah heerka tirada ragga marka loo eego dumarka, iyadoo ninka ku nool Ukraine uu ka yar yahay dumarka 11 sano. Nasiib darro, qaar badan oo ka mid ah haweenkaas quruxda badan ayaa ku khasbanaaday inay ku noolaadaan kelinnimo, iyadoo ay sababtu tahay la'aanta lamaane nolosha la qaybsada. Muuqaalka sulka inoo saarshay dad badan u gaaro. Mahadsanid.